السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسودو تي في مدح بنان بي سي 24 تي في مقعد مستح. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وكل ولا عدنا ما سنتي مقعد هو عبد الفتاح الشور علمي. عبد الفتاح. دوام بعد لسعودي أما مالك شرح هذا جمعيه ذلك المشاركة الناس الصومالية قال هذا رزارة على خيره. وحاول صوت صاري ورصحافيات إني كسور جدا هشيسكي سوماليلاند أي لقى شيء شركة دي بي ويل. uu ku tilmaamay waliba inay shirkadaasi tahay shirkad si Soomaaliya si tuugaaleysiya wixii uga saxaatay waliba wasaaruhu wuxuu sheegay uu yiri yani haddana anaga na soo marin shirkad kastoo anaga aan na soo marin dhulka Soomaalidu ay degto ama Somaliland iyo sida uu soo hadalka u dhigay ilaa Soomaaliya waxba kama saxan kartaan ama wax horumar ay ku sameyn karaan oo anagu aanan ogeyn ma jiro marka adigu ka dareen ahaan ka muwaadin ahaan hadalkaas laba arrimood mid waa shirkadda DB World iyo heshiiskayna la gashay midna waa Soomaaliya anigu markaan kala qaadantay shirkadda DB World u gudbo shirkadda DB World de waa layna maal gashan karaa waddankeena xaq baynu leenahay inaynu shirkado maal gashada keenno laakiin se waxaan u arkaa anigu iminka Ethiopia baart qayb ka tahay sida ownershipka ayay Ethiopia heshiiskii qayb uga tahay innaguna dawlad la aqoonsan yahay manhin mar haddayna ahayn dawlad la aqoonsan yahay waxa ahayd in heshiisyadeena marka horeba waxa la soo mariyaa internationally sida sharciga caalamku dhigay waxa Soomaaliya la soo mariyaa wali Soomaaliya ka tirsana sanduuqa horumarinta Somaliland waxa soo saxay madaxweyne Xasan Sheekh MOU-gii kan imika laga hadlayo DB World Xasan Sheekh baa saxay haddayna indhaas ka tuuraynana dee gudmanac ku wareegalisanayn collateral waxay naga lahaa dawladda Soomaaliya laakiin imika waxay muuqataa Ethiopia inay collateral naga tahay dawladda Soomaaliyana dee midnimada shacabka Soomaaliyeed buu taagantay meel recognition ku helay oo la leeyahay aqoonsi buuxa ku hesheena ilaa hadda ma haysano haddii mar saxiix dhacay ee la soo heshiiyey ee shirkadda DB World intay mas'uuliyiinta Somaliland ay imaaraadka tageen ay la soo saxiixdeen sababta Soomaaliya markii hore uga hadli weeday ee imika ugu hadlaysaa maxay Soomaaliya markii hore Xasan Sheekh bay ku beegantay dawladdu transitional period bay ku jirtay dawladda Soomaaliya Xasan Sheekh uu saxeexay farmaajo wuxuu yimi isagoo aan joogin qadar yar baa ayuu la kulmay political crisis buu ka baqay wuu iska daayay imika agreement-kii caadiga ah la kala saxday memorandum of understanding bay markii hore ahay imika agreement-kii caadiga ah la kala saxday mar hadday Soomaaliya aynu ka tirsanayna wali ixtiraaf qaadan ma runta soo sheegnaa miima ayna wali caalamka ka helin oo mashaariicdeeni inuu imanaysa soo saxayaan dawladda Soomaaliya inay ka hada xaq bay u leedahay ka shacab ahaana waxaanu aaminsanahay waddanka horumarka waddanka kama soo horjeedno haddaanu dhalinyarada iyo aqoon-yahanka waddanka kama soo horjeedno horumarka waddanka laakiin waxaanu ka soo horjeednaa wax kasta oo sovereignty-ga waddanka dhaawac ku keenaya Ethiopia sida ownership-ka u saxaysa ay partner uga tahay DB World u saxaysa haddii la doonayo subcontract la siiyo innaga inay naga siqaatay customer bay noo tahay innaga laakiin inay innaga share inaga qaadato ay share inala mida ay qaadato annagu fikirka waanu ka soo horjeednaa ma aaminsanin haddii ay wax sax tahayna waxaan doonaa sifo sharciya ka in looga dhaadhiciyo inuu madaxweynuhu details ka bixiyo in baarlamaanka la hor keeno oo sharci dejinta la hor keeno in si caadi ah loo ansixiyo in dadka loo soo bandhigo ilaa hadda waxaad moodaa wax kolba meel madow lagu huursanayo oo shacabkana bar laga qarinayo saxaafaddana bar loo soo deynayo marka waddankani annagu ma og diplomatska waddanka waan ogolahay ka dhalinyaraan wasaaruhu hadalkaa uu yidhi shirkaddu ilaa annaga ra'iisul wasaaruhu hadalkaa uu yidhi I think waxaan qabaa inuu ku saxsan yahay maxaa inoo diidaya inay Soomaaliyana gaasho Ethiopiana ma taas ma suuragal ba Soomaaliya wali waynu ka tirsanahay taas shaka kuma jiro Ethiopiana way saxeexaysaa kii Soomaaliyana oo diidaysa kana wada golaanaysa marka anigu hadalka ra'iisul wasaaraha sax baan u arkaa because of waxa weeye wali waddanaynu ka tirsanahay baynu nahay iyaga wixii international law la soo mariyaa international agreement aynu galayna iyaga la soo mariyaa iyaga inoo saxeexa ka baqan mayno dhalinyarahana iyo ka aqoon-yahanana ka baqan mayno wixii waddanku u baahan yahay dhaliishiisa in laga hadlo dadkiina waxaad moodaaba inay ka baqanayaan inay leeyihiin Ethiopia caynkana Ethiopia sidana war Ethiopia waddankeenan jaar baynu nahay jaarnimada waan ku ixtiraamayna dhaqaalaha ugu badan Ethiopia innaga marka la eego dhaqaalaha ugu badan Ethiopia innaga inaga saxaraysta qaadkeeda maxaynu kaga bedelanay inagu ilaa hadda leesma weydiin waxaanu kaga bedelanay aad baa thank you very much waa mahadsantihiin clip kaasan doonayaan adigu soo dirto WhatsApp